Siasa ya UDM hii. Basi hiyo tutaanza wakati tutaanza. شعبيك برمتي يا إدشي لا يقول سوفي لا شرف كدور برتي شعبيك برمتي يا إدشي لا يقول سوفي لا شرف كدور بوريسورو مران نبضلو بديو بدانا دا ليلي برشدو وكعي بوريسورو مران نبضلو بديو بدانا دا ليلي برشدو وكعي mamulbaariyo ballantiay galeen aan ka baydhiyo bulsha horu marke u baraarugtuu boqor idinka dhigay ايه فرفرة alxamdulilah ilaha mahad iska leh dadka rasilmaalka dhulkoodii soo gashtaa ilaahay ka soke mahad iska leh wadaninimada waa shay aada u muhiim waxaa la rabaa mar walbo annaga ummadeenii soomaaliyeed reer mandera reer wajeer reer gaales lacagtoodii waxay gashtaa nairobi iyo meelaha kale iyo kauntiyaasha kale rasilmaalkana ummadeenna u baahan horumarkana ummadeenna u baahan dadka macaamiisha moogtahay ka raadsada risqiga magaalooyinkoodii wadaninimada moogtahay lagu tilmaami karaa meeshanna waa meel aada u qurux badan waa aad iyo aadaan ugu faraxnay hotel casri ah oo swimming pool leh oo conference facilitiesna leh restaurant leh meel galabihii lagu qaxwaystana leh marka waan ku faraxnay aad iyo aad waxaan u malaynaa hadday ugu yaraatana ilaa 20 qof iyo 25 qof oo shaqaalaha inay meesha fursad ka helayaan sida wadanku ugu hormari lahaa ama countiga ugu hormari lahaydna waa marka dadka badi ay rasilmaadkoodii meesha soo gashtaan bedelkii la dhihi lahaa dowladda countiga imisa qof ay shaqagelisay dowladaha adduunka oo dhan inta qof oo dowlad u shaqayn karto way yar yihiin private sector investment baa shicibku ka faa'iideysan karaa dadkii Ismaaciil iyo qaraabadiisii oo fursadan meeshan moogtahay rasilmaal gelista moogta ku go'aan gaaray ilaahay ka soke maad baan idin celinaynaa annagana dowlad goboleedka Mandera wixii taageeroon idin siin karno idin siinaynaa waxayna tusaysaa wadaninimo waxaan rabnaa dadweynaha kale oo Soomaaliyeed oo bay'ac mushtariyaasha ah oo moogtahay meelaha kale wadankan lacagtoodii gashtay inay soo toowaan lacagtaas countigooda u baahan rasilmaal geliska countigooda u baahan private sector investment hal qof uu sameynaa noocan camal directly 25 ilaa 30 qof aa shaqo ka helaa indirectly beeraleyda reer Mandera oo dhanna meeshay fursad ka helayaan dukaamahana meesha fursad ka helayaan waxaan rabnaa habka moogta countiga uu ku hormari lahaydna waa taa waad ku mahadsantahay aad iyo aad insha Allah taala annagana mas'uulkii countiga hadaan ahay iyo walaalkaygii deputy governor iyo odayaasha magaalada oo isla joogno ilaahay baan idin baryaynaa insha Allah inuu ilaahay idin barakeeyo intaasaan leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh okay I will share in a key investment by private sector, an entrepreneur who has made a decision to put his resources into the county by building a hotel by the name Amara Blue
resort in Mandera town. Such investment is something that is worth being emulated by others. I am here to officially open this hotel today. The hotel has, accommodation facilities as well as conference facilities, restaurant and cafeteria, in terms of even outside garden. And it is a facility that is, to the standard of any good facility anywhere in Nairobi and elsewhere. I applaud, the investor. I also greatly appreciate the fact that these people are patriotic enough to remember to invest back in their county. We will support them as county government. We will support them. We also urge the public to do the same. And if you look at this investment, it's going to directly provide employment to over 30 people, staff, and indirectly our farmers along River Dawa, the wholesalers and those that sell food and that are going to benefit from this facility, and that is building the economy, and that is what we are very proud of. We see such an investment not only as a gesture of investment, but as an indication of a test of patriotism and sense of belonging to one's county. I want to say thank you very much, Ismail and the team. Well done. Good job. Thank you.